maansada ama gabayga uu la diyaar yahay maxamedna waxa halku dhigeedu ay tahay ummadeena waxa soo qabsaday isna waxaan leeyahay ku soo dhawow microphone-ka. bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillaahi rabbil aalamiin, sallallahu ala nabiyyina wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama ajmaciin. waxa ay Soomaalidu ku mahmahdaa ninba ceesaantii ceelge, mar kalena waxaa la yidhahdaa togba taagi buu ragwadaa. kolley intaa cabdinuur uu mariyey iyo intii uu mariyey ninkii xaashigii ka horreeyey ee saaka gabayga tiriyey midkoodna malaha anigu ma dhadhaweynayo, sababtoo gabayga hiddana uu melihi manaan baran ee waan isku dayay uun. halkan waxaan ka soo gudbinayaa tix gabaya oo la yidhaahdo ummaddeenna waxa soo qabsaday lama ilaawaan. waxay tixdani ka sheekaynaysaa wixii inagu dhacay innaga ummaddeenna Soomaaliyeed soo qabsaday sabanadii dambe ayay guudmar ku samaynaysaa. waxay xagga dambe kaga sii laraysaa aragtideeda waxaan u arkay inuu keenay dhibaatada iyo dabcan mowqifkayga shakhsigaa oo aanu arko inuu yahay kala qaato ee habboon. saas oo kale talo ayaa ku jirta aan u soo jeedinaya maaragtay dadka muslimka ah. mar kasta oo aan la kulmo dad Soomaaliyeed oo ay ka sheekeeyaan dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed qabsaday ama qurbe ama gudihii, waxaa markaan aan ka tago igu soo dhacda waxa Soomaaliya ku dhacay bal ka fikir oo xisaabi, markaasay dhammaanba weydaa. markaasaan ka hadhaa 26 Juun ee bishan, macnaha isniintii dhaweyto, maanta bisha Juulaay waa 2, markaa 26 Juun ayaan u kada loobsaday oon sidii bal waxaan kolba kugu soo dhaca bal qor oo gabay ka dhig amaba maaragtay u samee shaxan iyo hab dadku ay xasuustaan ama adiga qudhaada aad xasuusato. laakiinse wax ka badan waxa yacni la sheegay ayaa igu soo dhacay, saas aawadeed baan u kala hufay oo aan in yar ka soo qaatay. waxaanan idinku muujiyey dhextaalka gabayga oo aan mar walba ku odhanayo ummaddeenna waxa soo qabsaday lama ilaawaane, haddii aan itaalkay waxaan ogay ka sheekeeyo u adkaysan maysaan inaa aayar bogataane, orta dumarka iyaba isku dari oo hinta hablaaye, ilmaa idinka soo quban haddaan aad u sii gale. ereygaasaan kusoo celcelinaya dhowr jeer oon ku tilmaamaya inaanan wixii maaragtay dhacay aanan ka wada sheekayn. waxaan dabcan waa waxaa wada ogtihiin, waa iga xasuusin keliya. saas aawadeed waxaan gabayga ku bilaabay sidan: waxaan idin ogeysiinayaa waxaad ogsoontiine, indhahaan idiin saarayaa waxaad arkaysaane, or idiin baxaysiyo dhawaaqaad u dananaya, oo dhagaha idin awday baan sii alwinayaaye, asaayaan ka sheekaynayaa uruga xoog weyne, wixii aradka Soomaaliyeed arami soo gaadhay oo urursan baan doonayaa inaad ogaataane, ummaddeenna waxa soo qabsaday lama ilaawaane. tacab abadan soo jiray wixii gelin abuur beelay, aqal daar ahaa iyo sandaqad loo askumay raaxo, ama fooqa qurux loo unkoo ila xidh loo yeelay, wixii ay abaasheen kuwii ku intifaacayey, arli beero daaqsina lahaa wixii abaaroobay, ee aadmigii joogi jiray silic ugaadhoobay, anfariir wixii loo qaxee orodku dheeraaday, aalaaf barbaartii dalkaa wixii unuun beelay, odayaal magayda ah wixii adhaxda loo jiiday, ugub soo kacaayiyo wixii oorixila beelay, wixii gabadh aroosada la yidhi xidha asaydaada, ummaddeenna waxa soo qabsaday lama ilaawaane. u adkaysan mays haddii aan itaalkay waxaan ogay ka sheekeeyo, u adkaysan maysaan inaa aayar bogataane, orta dumarka iyaba isku dari oo hinta hablaaye, ilmaa idinka soo quban haddaan aad u sii gale. wixii lays abaabulay dagaal lagu agoonoobay, aabiya wixii laysla dhacay ololka baaruudda, wixii aana loo dilay dad aan eedyar lagu haysan,
iilkiyo xabaalaa wixii aadmi laga buuxshay wixii inan gashaantiya sidii iligta loo boobay abboowow idhaafiyo waxay baqi la ooyaysay wixii yaa islaamaay baxdee loo arxami waayey abtow seediyow iyo wixii ina adeer yeedhay is-aqoontii waxay baaba'dee odaygii xoogaystay wixii hooyo ehelkeed go'ee aabbe laga doortay ilmo gababaxlaysiyo wixii oohin lagu waashay aqalladii hargaysaad wixii olol la daarsiiyey xamar wixii abaad laga dhigiyo obocdii taariikhda ilmo gababaxlaysiyo wixii oohin lagu waashay aqalladii hargaysaad wixii olol la daarsiiyey xamar wixii abaad laga dhigiyo obocdii taariikhda umul iyo duqay iyo wixii ubad la xuurtoonshay oon iyo harraad iyo wixii silic la aynfaaday anfariir wixii loo qaxee laysu iman waayey dhul addoonileediyo wixii xabashi loo oolay nimaankuu arxamahayn wixii ehel la moodaayey utun iyo colaad hore wixiina laga aargoostay iska daa ammaan inaan hellee waxaannu eedaadnay wixii cudur wax aafeeye iyo aydhis nagu baahay ee kuman adduunku u bilaa axe ku naafoobay iyaba waa ibtila noo horliyo oday ka sheekeeye waa inkaara aan dhicin tan iyo bani israa'iile ummaddeenna waxa soo qabsaday lama ilaawaane haddii aan itaalkay waxaan ogay ka sheekeeyo u adkaysan maysaan inaa aayar bogataane orta dumarka iyaba isku dari oohinta hablaaye ilmaa idinka soo quban haddaan aad u sii galee wixii aan ameerika iyo uruba doormoodnay indhergaratadeennii waxay oodda soo jebisay dad aanna oggolayn iyo waxaan gaale ehel moodnay asal raac fidnoobiyo wixii eeda naga faafay ashkatooyin wixiina laga qorayna lagu oodaayo aflagaada iyo cay wixiina lagu soo aa'ay addoon iyo wixii layna yidhi arag xundaayeera adin iyo wixii laygu daray ul iyo liishaanba khamri iyo isbiirtiyo waxaan barannay aafooyin rag ammaanadii iyo wuxuu daadshay ubadkiisa waxa aqal burburay een lahayn cid u ergaynaysa ugxantii dadkeenniyo waxaa dhalin ugaadhowday iyaba waa ibtila noo horliyo oday ka sheekeeye nin kale aroosanahayoo oori laga yeelan oo soomaali baan ahay ku odhan edab xumaantiisa oo aaladii dumarka xidhan waxaad arkaysaaye ummaddeenna waxaa soo qabsaday lama ilaawaane haddii aan itaalkay waxaan ogay ka sheekeeyo u adkaysan maysaan inaa aayar bogataane horta dumarka iyaba isku dari oohinta hablaaye ilmaa idinka soo quban haddaan aad u sii gale waxbayaan alhuumada xilkale aad u faaqidine waxbayaan ayaamaha silloon eelkii sii qodine waxbayaan itaalxumo darteed oohin doorbidine asalkii musiibada inaan eegabaa mudane abasada rugteedii inaan aado way tahaye inaan ereyo waanaa idhaa way ekoon tahaye aqoonsiga xaggaygaa inaan oogta ka caddeeyo ood wada ogaataan malaha ii garway tahaye eedowda soomaaliyey aragtidaydiiye abtirsiinya weeyaan waxaa oodda kuu rogaye afrika iyo eeshiya waxaa dunida uun buuxshay waxa aabbahood loogu wici waa aqoonsiga marka aad isaaq sheegatiyo udubka daarooda ama aad hawiye aada iyo irir ku faanayso aniguna islaam baan abiye ehelba sheegtaaye ilmaadeeraday waa intaan eebbacaasiine ibraahiim khaliilkii allaan agabsanayaaye ruuxii qabiilka arrinshee qaranka aafeeya ololaha nacaybkaa ninkii aaranka u fuula aakhira hallays buu tabcaday dunina eedowye arladeenna ruuxii sidii adhi u qaybqaybsha abtirsiimo qoysiyo ninkii oday ku jaangooya isagoon i weyddiin ninkii xero yarii ooda ee yidhaa intaasaad ku jira abid intaad nooshay ay aragtidiisii la tahay inuu awoodaayo isticmaal inuu duufsadoon ogahay baan sheegay ikhtiyaar haddii aan hadloon aragtiday muujo edeg goosan maayee haddaan qeexaaradkayga iimey awaariye ilaa arabsiyaan sheegtay
iimey awaariye ilaa arabsiyaan sheegtay ood weyne ceeg iyo burciya aga barbaan sheegtay af madoobe cayn iyo toggii ula samaan sheegtay isku shuban taleex iyo hobiyo ilig ayaan sheegtay alxamdulilah ayl iyo dhulkii udugyadan sheegtay awdheegle bay iyo bakool idhanta kaymaa leh obocdii dalkaygiiyo baddiya xamar abbaarteeda amranow afgooye halkuu uur ku jiranayey agta wabishabeeliya markiya aradsankaan sheegtay afmadow kismaanye ilaa enef dhibaan sheegtay dhul axmaara naga haysatiya adari baan sheegtay dhammaan aradka soomaaliyo idil ayaan sheegtay afgunaanadkii iyaanoo ila xidhkii jooga ururada islaamka haddaan ereyar gaadhsiiyo culimmada abaabulan haddaan ugu ubateeyo aqoonsiga xaggaygaa anoo oogta ka caddaysan itixaad ikhwaaniya haddaad tidhi islaax baanay aniguna intoo wada socdiyo ehel sunnaan sheegtay axmedow rasuulkii alliya axad rabbaan sheegtay asxaabihii iyo dhammaan a'immadaan sheegtay aayaadka diintiiyo sharciga lagu ordaan sheegtay is-abaabul lama diidaniye urur samayntiiye kolse hadduu dadkii urursanaa kala eryoonayo kuwii kala irdhaysnaana uu oodu kala yeeli islaamkii haddii uu ka dhigi magac yaroo eed leh oo uu albaabada ka xidhi kii aqbali waaya abda kuma jirtee waa inaad ilo ogaataane albaqriya haddii aan akhriyey uduga yaasiinka oo aan aflama daaliye aad u garanayo islaamnimadu waa inaad sidii ulu sinnaataane waa inaan khilaaf la aqbaline laga ajoodaaye dabinuu ibliis dhigayna aan aayar loo geline ikhwaanow waxaan odhan lahaa eega taladiinna aragtida xurmeeyo ninkii iisha soo celiya ijtihaad wixii geli kariya aayad kala saara dad adadkaanta dhima oo jacayl aad isugu beera dadkana urusha idanka alle waa ku aflaxaysaane